السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر والقليد ديزاين سمر والبقالة سعودان علمي كمبيوتر كي برامج ملتي ميديا عشر كان وحو كسابسين هاي سيدا لوgu sameeyo Adobe Photoshop logo ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah cashiradan aan mar walba idin soo gudbino waa cashir aad u muhiimsan oo aqoontaada aad ku horumarin kartid oo asxaab badan la wadaagi kartid aqoontaada muhiimada waxa graphic designer hadaa noqotid waa muhiimada ugu muhiimsan dhinaca multimedia hadaa baratid shaqooyin badan aad ku qabsan kartaa insha Allah haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay ugu faa'iideystaan adigana aad ka mid noqdid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyada aan soo gudbino markuu horeyso Photoshop-ka soo kici haduu ku shaqeynaa waa kan sidan camal u soo kaca ama kala duwan yihiin CC ama Studio 6 CS6 waa isku mid muhiimada waxa waa cabirka meesha laga tagi lahayd file baa dhihi kartaa kadib new baa dhihi kartaa ampersand-liska new ayaa click ku siinaysaa kadibna magaca meeshan wuxuu ku soo bandhigay meeshan waxa waaye waa logo magaca qaybta ugu horeyso kadibna meeshan waxaad dooranaysaa pixel isticmaal pixelka cabirka rabtid ka dhigo 720 lagu dhuftay 720 jooga dhirirka waxa isku mid waa resolution 300 kadibna RGB ha ku ahaado background white ha ku ahaado dan create kadibna okay control O leh cabir fit soo kugu siin shape abuur meeshan shape iska laga tagay Excel tool dooro shift qabo cabir islike weynay cabir islike markaas saas u weynaysid ama aad dooratid waa ka yareyn kartaa ama waa ka weynayn kartaa control T leh yaray hadana cabir normal ayaad qaadanaysaa kadibna sax saaro kadibna meeshan text dooro kadibna qoraal ku qor kadibna waxa rabtid ku qoro ayaad ku qoran kartaa wax muhiim ah okay magaca u talgashay saas marka ugu qortid farta arabtid now oo arlonde aloo yaqaan farta aan rabo kadibna select gareyso colorka bedel muhiimada waxa way loogada intaad nashqadeyn waa inaad ogaatid colorska adiga xiiseysid marka saas u sameysatid colorska aad rabtid inta ku diyaarsanaysaa si adoodi automatically aad door kartid door color meeshan kugu diyaarsan colorska waa inaad baratid kadibna okay leh kadibna qaybtan kale aad rabtaa designs ina magac colorka ku bedeshid bluega ama bluega stick ah door kartaa kadibna okay aad leedahay kadibna control T leh waxay select garay saan soo dhaxday shift control ka qabanaysaa kadibna wad ku deelay kadibna sax saara okay shape kan click ku si control T leh control T leh calaamadan click ku si aspect ratio kadibna enter leh v door waa move tool ay dhigan tahay kadibna shape kan kor soo marsi kan waxa sameynaysaa u leh non leh stroke ana wax ma u baahantid waxa u baahan tahay kaliya dhaxdaasi maxaa la geesaha leh u baahan tahay stroke waxa rabtid ka dhigo madow ka dhig ama cadaan ka dhig stroke laba ka dhig geesaha kan kale tan sidoo kale u dooro non leh kadibna stroke waxa rabtid ka dhigo stroke waxaad ka dhigtid madow leh ka dhigo kadibna size-ka laba ka dhig ama halkiisa tii karta okay way kan ku soo noqo stroke hal xaba ka dhig kadibna okay leh ama sax saaro kadib hadda looga tan shape kan click ku si shape ka dhaxda kadibna aspect ratio dooro iyo xiris yaray enter leh kadib waxaan rabnaa hadana inaan ku shape inaan ku soo darno design-kii custom shapes ka tagayna shapes ka arabna intay ku jiraan meeshan fur all leh abandon leh weynay meeshan dilal shapes ka ay ku yirihiin meeshan aad soo dar kartaa ama internet-ka shape diyaarsan ayaa ku soo darsan kartaa oo ku soo gali kartaa kadibna click ku si close leh kadibna shape ka meeshan ku weynay sababtoo hal shay uu ka dhigmo ciladaas ku dhacday Windows tag history leh ku soo celi bas kadibna new layer meeshan hadda custom shapes ka diyaarso kadibna shift qabo ku weynay meeshan colorka hadda okay way okay
oo select jack cut kadibna hadda shape-kan hadda waxaan rabtaa shape-kan kalarka bluegan inaad sida u samayn kartaa click oo ku sii kartaa layerka kadibna color overlay ayaa kugu soo bandhigaa anay kalarka ma u baahna waa may kalarka waxaan u baahana loogada ay ka kooban tahay kaliya ku siinaa automatically okay kadibna okay saas oo samayn kartaa kadibna waxaa kale oo baahan tahay meeshan custom shapeska waa inaad doortaa new layer hadana xidig waxyaabahaas daarto soo gasho kartaa ama sidiisa ku dii kartaa ama wax walba oo qurux badan aad u aragtid ayaa meeshan ku soo darsanaysaa muhiimada waxa waaye design fadhiya oo qurux badan markii qofka arko isla markii conform ku dhahi karo ayaa soo gashanaysaa shift qabo kadibna okay kadibna control t waa sharaxaad kadibna soo yaray soo samayn kartaa okay haddana formation waxa kale soo dooro inta badan muhiim u aragtid okay waxaa kaloo dooro kartaa teamka camal sababtoo wax sameynayso group way ma shift qabo menu layer mar walba inaad new layer hadid waa shapeska custom shapeska ku diyaarsan computerkaada oo photoshop-ka wata hadii kale tahay noqonaysaa layerka inuu isku xiro oo hal xab uu ka dhigo wax dhan kadibna markaa wareejinaysa mid walba kooni ma la tacaamuli kartid okay loogada saas oo sameysay loogada way noo dhan tahay waxaan rabnaa loogadani background sida loo qaado background jack cut waxaan rabnaa loogada saan camal inay transparent ahaato sida u save gareyn kartaa intaan save gareyn mar walba waxa muhiim ah loogada cadaan meelahan inaad crop ku sameysid si crop-kaas wuxuu ka qayb qaadanaa meesha la geenayo cabir weyn ka qaadanaa cabirkaas uu ku fadhiyo ku siinaa bas kadibna okay sax saaro kadibna control 0 sidee ayaa u save gareyn kartaa hadda file kadibna save as ayaa leedahay kadibna project ahaan u save gareyso kadibna save intaas ayaan kusoo gabagabeynayna haddii ku cusubta channelkeena fadlan subscribe like share asxaabadan ay u faa'iideystaan adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoda aan soo gudbino